بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkan aan idiin wadaa waa war aad u muhiim ah oo ay tahay inaad dhageysataan bilow ilaa dhamaad. waxa aan idiin wadaa sheekada gabadh magaceeda la yiraahdo Sagal oo baafinaysa qoyskeeda. Sagal waxay ku jirtaa daadii sodomeeyay ku jirtaa. shalay oo ay Ramadaan ahayd 1445 hijriya ayay noogu timi xafiiska. waxay naga codsatay in aan warkeeda idin soo gaarsiino. warkeeda in yar baan idinka taabanaya, iyada ayaan u deenayaa inay faahfaahin ka bixiso. waxaanu doonaynaa inaynu la raadino dadkeeda hadda si wanaagsan iyo dhageysta. marka inta yar aan idinka qariiraya waxa weeye Sagal waxay ay si cad noogu sheegtay in yaraantii la xaday. qoladii xaday ama gabadhii xaday markii ay sii dhimanaysay u sheegtay inay xaday. halkay ka soo xaday? waxay tiri bari. marka loo sheegayaana waxa la joogaa Hargeysa oo gabadhii soo qaadatay ayaa sii dhimanaysay. waa sida ay Sagal ay noogu waramaysaa anaga. markay sii dhimanaysay ku tiri ay u sheegtay xaqiiqada u sheegtay. waxay tiri muxuu ahaa waxa weey waan ku soo qaatay iyadoo dadkaagu ku ogeyn baan ku soo qaatay. hunguri baa iga ka galay, damac baa iga ka galay. gabadha marxumaduna u badmay lahayn. marka waxa weey bari baan ka soo kaxaystay. bari oo wahalkee uma sheegin ma Burca ma Ceerigaaba ma Laascaanoodba ma Garowa looma sheegin. laakiin tilmaan bay siisay siday ahayd markii ay soo kaxaysanaysay. waxay tiri lugta ayaad ka dhaawacnayd. lugta ma bidix bay ahayd lugta mise midig taana uma sheegin. lugtaad ka dhaawacnaydo lugtaadu waxay ahayd lug la dhayayo. markaa lug la dhayayo la daweynayo ayay ahayd. intaa quray u sheegtay. baaqiga iyadan u deenayaa inay faahfaahin ka bixiso. aniga magacayga Sagal weeye. Sagal waxaan ku dara ma garanayo. ana caaw haddaan dhinto meel loo raacaya ma jirto. ma garatay dadkaygina maanta haddaan isla magac sheeg magac ma garanayo. qabiilkoodii ma garanayo. marka awal dadkayga inaan raadi maan danayn jirin. meeshaan deganay cabsi baan ku deganahay. anoo hurday xitaa guriga waa la igu gubay. cabsi baa igu kaliftay inaan dadkayga raadsado. ma garatay aniga magacayga Sagal weeye. Sagal waxaan ku dara ma garanayo. aniga gabadh baa i korsatay. gabadhii korsatayna waa ay dhimatay. markay dhimanaysayna waxay ii sheegtay inaysan iyadu i dhalin. dadkayga inaan raadsado maantay dee ay kuu gaadho dadkaaga raadso. markaan weydiiyey dee waxa qaabaan ku raacay leen dadka markaa daalinsa qaab baa lagu raadiyaa ama magacyaa lagu raadiyaa in ayadoodii ama qabiil baa lagu raadiyaa. labadii midna gabadhaasi imay sheegin. waxayna igu tiri dee markaan ciddii aan ku dhashay aan garanaya kaa soo qaatay ayaan kuu sheegi karaa. laakiin qof aan meel ka helay banaan ka helay ma garan karo dee magacoodii iyo qabiilkoodii toona. ma garatay marka anigu markaan maskaxiyan dee baadhay sir dadkaaga waxaad ku heli kartaa markay dadku ka maqayin inaad hesho in aad ku baadhatid dhiiga dhiyaanaydka dhalmada. ma garatay inaad dadkaaga ku heli kartid sababtaas uma sir dadkaaga waad ku heli kartaa. laakiin qabiil ma garanayo, magacaan sheegan ma garanayo. Sagal ma dhaafin karo. ma garatay way Sagalay imika shirbaad anigu daadayda ma garanayo. laakiin dee soddon miyaan ka yaray haddana kaba weyneyn. way goorma lagu sheegay warka muxuu ahaay inaan qoyskaasi ku dhalin qoyskaada joogtay? anigoo dee 12 jir ayaa la ii sheegay. weliba iyadu ii sheegtay markay dhimanaysay. iyada laftarkeeda ilaa imsi shirbaad hay ilaa 17 jir waan ahaa. markaa markiiba waxaa i kaxaysay gabadh iyada ay walaalihiin oo hadda intaan qaxootiga joogay dhimatay ayaa i kaxaysay. gabadhaas ay haysay. Sagalay hooyadii ku soo korsatay. ilaahay soo korsatay. halkee bay tiri waxa ayaan ka helay.
waxay tiri xaggan markaa dee hargeysaan joognay xaggan bariga dhinacan marka xaggan dee burcaya aagan oo kale ayay sheegtay markii aan ku kaxeeyey bay tiri xitaa laftarkeeda aan ku helay adigu waxaad ahayd bay tiri ilmo yaroo ilaa 3 jir ayaad ahayd dhaawacna waad ahayd bay tiri lug baad dhaawac ka ahayd markaa meel aad kasoo baxdayna ma fahansaneyn lugtaad dhaawac ka ahayd lugtiina qaab la dhayay oo kale ayay ahayd bay tiri marana waad xidhnayd bay tiri dirac oo kalea markii aan ku helayna waxaan isku dayay bay tiri inaan micnaha dadkii kula raadiyo dee meelaha markaan kaa helay markii dambena dabacbayga kaa galay anigaa ku kaxeeyey ilaa jabuuti baan kula aaday bay tiri ma fahanti ha markaa jabuuti markaan taagnay kadib anoo weyn baabana midde halkan hargeysa marka halkay meeshay kaa heshay waxa weeye waxay ilmo yar lumay baad ahayd markii hore ha say iyadu u dhigaysay ilmo yar lumay ilmo lumay baad ahayd bay tiri dhaawacna de lugta dhaawac ka la dheeyay micnaha de qof waxaad ahayd dadkooda haystaan oo dheeyayeen oo ilmo markaa soo baxay oo kale yaad ahayd bay tiri marka aniguna de meeshaad kasoo baxday maan arkaynin markaan isku dayay inaan kula raadiyana anigii baaba damaciga kaa galoo ku haystay wax awlaadana gabadhaas may lahayd kale anigun baa awlaad u ahaa ada awlaadu ha de markay haysatay wax awlaada way haysatay anu baa jirtay marka gabadh weyn bay ahayd marka ha gabadh weyn bay ahayd ma garat marka ilaa jabuutina waxaan ka nimid anoo weynba maxaa loo odhan jiray farxiya magaceedu saddexan farxiyo guray farxiyo maxamed faarax baa leedaha laakiin farxiyo guray ay ku naanays dheereyd reer ahaanna qabiil ahaanna iyay ahayd qabiil ahaan waxay ahayd ogaadeen kee bay ahayd reer cabdille reer cali yuusuf bay ahayd reer cali yuusuf ku celi magaceeda farxiyo maxamed faarax farxiyo maxamed faarax oo ina guray leedahay ina guray micnaha baheed ku naanays ku dheeriyeen ayay ahayd maxamed oo guri loo jeedo ha aabaheed baa guri loo oran jiray aabaheeda maxamed wayahay waxaad yani ila al'aan waxaan doonayaa bal haddii uu xasuuso waa inay meesha magaalada ma kuu sheegtay magaalo ay ka heshay markaad yaray maysaa waxba iguma sii sheegin laakiin bari bay igu tiri xaggan bariga ayaan kaa soo helay xagga bariga bari de waa dhinacantan meel bari la isku dhihin marka hargeysa kugu sheegaysaa hargeysa markaa igu sheegaysaa dhakhtarka hargeysa weyn bayba taal markii aniga ii sheegayso ha waxa weeye marka markay sii ha way xanuunsanaysay anaaba hayeyba waa markay muxuu ahaa ay sii dhimanaysay ilaahay naxariista ha ay aniga ii sheegaysaa bari marka cid kale oo walaaladeeda gabadhaa ma aragtay warkeeda hayay ma jiraa gabadhaa ma aragtay dambe gacanta ay ugu dhigtay dee ay wada dhasheen u dhigantay habaryarta dee habartay u dhigantay walaasheed ahayd gabadhaas unbaa ay aada iskugu dhawaayeen haddii aan israa dee waxbay ka ogeyn xaaladeeda ka ogaan karta iyadana waa mutanta iyada intaan gurigiisa deganaa bay hadda dhimatay ma garat dadkan kalena ee dee noolna haddii xitaa la weydiiyo anigu waan weydiiyey dhowr jeer ma fahantay wax alle waxay ka ogyihiin habay raatee ma jirto dadkan anigu laakiin waxaan ogahay inaysan dee gabadhaasi dhalin dadkaygana aan doonayo raadsanayo waan ogahay gabadhaa dambe ayay haysayna way ogeyd maxaa loola jiray gabadha dambe nimco maxamed ba markaa nimco maxamed faarax walaasheed walaasheed isku isku abiyin ma isku hooyo maaha waa isku aabo waa isku aabo hargeysa timaadeen hargeysa nimid haayo waxay u timid hablahooda hargeysana si dhameystay hablahooda u timid hablahooda ayay u timid gabadhaa markaa dambe gacanta igu haysay ayay aada iskugu dhawaayeen u iman jirtay wax siin jirtay nimco ma jirto nimco iyada kaliya weynaa iyadaa weyneyd farxiya weyneyd nimco way yarayd markaa gabadhaas aada iskugu dhawaayeen gabadhaasaa wax siin jirtay gabadhaasaa dee way is ogaayeen macnaha kuwa kale way iskaga dhawaayeen ma garat halkaasaan iska deganay waynoo iman jirtay meel hargeysa ku taaloo leedhaa faluujo miyay ahayd faluujo loo guuray mar ayay mar hooyadaydaa soo guurtay meel baa laga siiyey halkaasaan iska deganay iyadu waynoo iman jirtay habartaydaas waynoo iman jirtay dee habartay un bay ahayd yadna hooyaday un bay ahayd marka markii dambena dee saan hargeysa iskaga deganay wataatiyaa loo timid wax awlaadan anunbaa u ahaa anunbaa la joogay anunbaa haystay inamada kale walaaladeed marmar ka yar baa iman jiray xuseen leedhaa marmar u iman jiray cabdishakuur baa leedhaa cabdishakuur iyo xuseen way xuseen wiyar isma ka ugu yar buu weyn cabdishakuurna wuxuu iyadu ku xigayba hooyadeydin buu ku xigay
cabdishakuur maxamed faarax arma laga yaabaa inuu xog hayo maadaama والله حق هدي هيان ويسين لهاي بيلات يعني ma weydiisay adigu واو اللي ويديها ما فهمتي marka reer may ayad sheegan jirtay ama hooyada kugu tiri muxuu ahay waa tahay aad sheegan jirnay البهان تاعتي بيورن جرتي dhulbahanti baa tahay ها جامع سياد jaansiya ها ayaa tay بيورن جرتي jaansiyadkee ريكوشن reer koosha way inaa ayaa tahay ku انا محمد سعيد واي markii Djibouti deganay nin baa qabay waa gartayada ها ninkii uu dhintay nin dhulbanta ها ayaa qabay nin dhulbanta nin dhulbahantaa ninkaasi oran jirtay uu ku dhalay ma fahantay magaciisa hadda saadkayga xitaa magaciisa igu qoray kaarkayga waan gartay magaciisa igu qoran waan gartay ma fahantay laakiin de wixii wax isla noqdeen markii dambe wixii ba been isla noqdeen way ninka dhulbanta maxay oran jiray maxamed magaciisa noo ramaysa maxamed saciid yaasiin maxamed saciid yaasiin tima jilcibuna kunaanay isku lahaa saygeedu waa ها uu qabay laakiin si odag ninka aniga laftarkaygu xitaa de aabahay waan u aqaan laakiin cid kale oo daba socoto oo xitaa sira sira ma arag laakiin anigu isaga aabahay baan u aqaan waan ku aqleeyst marka magacaaga maxaad sheegan jirtay sagal maxamed saciid yaasiin sagal maxamed saciid yaasiin sagal maxamed saciid yaasiin kaarkayga buu igu qoray saas ku qoray ha sagal maxamed saciid yaasiin marka isagu ma laha naanays ma laha tima jilc aabihii iyo awowgii magac ma laha may intaas ma taqaan ha isaga laakiin tima jilc baa loo naanays awlaad kale ma laha baa kale may wax awlaadoo kale ma aragba oo aniga hayna guriga joogay waan gartay marka isagu uu kasii horeeyay ku hor dhintay iyada ha uu ka hor dhintay iyadu ka hor dhintay adoo adinko jooga ها وكور دنت يدو أنا استحت من شري دمت قبل isaguna سو أنا واسكو وحير ولنت هذا وحير لكن قرنا يدي waad garanaysa ها lix ilaa 7 meelaha ها لكن ولا يا لكن ده قرنا يا أنسلي وابها عادي وقرنا ساس كويسان واي وهوي ولا لدينا وحو sheegtay ina maxamed ina maxamed saciid oo iyaduna dhashay iyaduna ku dhashay iyaduna hooyaday tahay ina maxamed saciidna la dhaho xogta iyadoo ma sheegin uma sheegin waxay dhimatay iyadoo sheegin iyadoo u sheegin aniga ii sheegtay marka gabadha ma aragtay dhimatay dambe ay aad iskugu dhawaayeen gabadhaas ma aan xogteeda haysay faantay maxaad maanta u baahan tahay maanta waxaan u baahanahay marka koobaad inaan dadkayga helo haddii ay jiraan dadkoodii ka maqan yihiin inaan dadkayga helo kuna baadho maadaama aan magacna aqoonin qabiilna aan garanaynin inaan ku baadho dhiigga DNA-ka DNA ha marka koobaad marka labaad waxaan ay gabar Soomaaliyeed qabiilkan doona baan ahaadee gabar Soomaaliyeed baan ahay halkaasaan deganahay waan duruufeysanahay cabsi baa halkaa iga soo wajahday aad u fara badan baahidan Ilaahay baa biiya qofka bilaadankaana ka dul qaada awlaad yar baan istaa saddexa والله بينكم مشيغي وان صومنahay والله بينكم مشيغي daraad markaan ka yimid ilaa habeen hore waan joogay halkan daraad markaan ka yimid ilaa hadda wallahi baan carruurteeda waxba uga iman labada qodob way keentay halkan labada qodobba way ka keeneen inaan dadkayga helo oo hadii aan calaf ku leeyahay ilaahay soo dhaweeyo marka labaadna ummadda muslimiinta waxa ka codsanaya halka amni darrana waan ku dareemay baahi aad u fara badan waan ku dareemay inay hadday iga caawin karaan ummadda muslimiinta iga caawiso waad dhegaysateen sheekada sagal ee murugada leh anigoo ah cabdimaalik sheekh muuse coldoon waxaan si gaara idinka codsanaya idinku adkaynaya markii aad dhegaysateen warkeeda qof kasta ama qoys kasta oo aad ku tuhmaysaan inay inantani ka maqan tahay ama qoys kastaaba ha nala soo xidhiidho oo muxuu ahaye u arka inay inantoodii tahay waxaan la hadlayaa cid kasta oo sheekadan markuu dhageystay dooc iyo dareen ka haya warka noocana qoyskan ha nala soo xidhiidho ha nala raadiyo laba arrimood bay sagal u baahan tahay labada arrimood baa aynu u kacno inay qoyskeedii hesho iyo waxa weeye baahi duruuf dhaqaalena way sheegatay intay qoyskeeda raadinayso waxayna duruufteeda waa inaynu daboolnaa
fadlan nala soo xidhiidha annagoo ah kaalmee kuwan ayaa u shaqaynayna una ururinayna muxuu ahaye wixii loo soo dirayo waxaad ugu soo hagaajisaan lambarada soo socda ayaad ugu soo hagaajinaysaan waana kaad nagala soo xidhiidhaysaan lambarada kale ah ayaad nagala soo xidhiidhi kartaan eber eber 252 634 eber eber 966 lambarkaas waa telesom adeega zaadna waa leeyahay waana nagala soo xidhiidhi kartaan whatsappna uu leeyahay sidoo kale waxaan idin yeeranayaa lambar somtela oo ii dahab leh isla markaana whatsapp leh oo nagala soo xidhiidhi kartaan oo ah eber eber 252 634 eber eber 966 إن شاء الله الله كبرينا دمانتين وأنا الله كبريا إن مقالك حجة أن سجل كقال ليه إنه نقضب بشارة إنه قويس كذي هالشيء ريرك أسينا كما يسمرين ريرك أي كم قنتاي إلا يهدى كما أي سمرين وحلقة يا بين هو هاي أي نور كذي هالله مقال كان أنا مكيدلها الله وحا ودومية ما أنتوا أي تاريخ وتاي لبيه لباتك رمضان كن أفر بقول أفرتني شن هجرية وكوبيجن كودة بشافراد لبضا كن يافر لباتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.